su-aasha kale aan ku weydiinayo waxa weeyaan Etoobiyaanka haddii ay ka baxaan Soomaaliya ma laga yaabaa Soomaalida dhexdeeda civil war inuu ka dhaco Soomaalidu waa dagaalamtaa haddadaas Etoobiyaanku joogaan qabaa'ilkuna hoosta dagaal ka wada ha ahaatee dagaallo waaweyn oo dhacaya oo dagaaladii waa laga daalay dadku wax badan ay dagaalamayeen nimanka u malayn maayo inuu dagaal weyn u dhacayo ha ahaatee maba baxayaanba inta dawladda dagaal ugu hayo nimanka waxay u yimaadeen dawladda inay xoojiyaan Soomaalida dawladda oo aan isku fiinaan oo ammaanka waddanka xiji karin ma baxayaan ama ciidamo kale oo Afrikaan ama United Nations oo iyo booskooda inta ay ka imaanayaan way joogaan ujeedadu waxa waaye dadka Soomaalida dhiigooda in la kala badbaadiyo oo ammaanka la sugo dadka diidan ciidanka ajnabiga ama Afrikaan ha ahaadeen United Nations ha ahaadeen ama wadamada dariska ha ahaadeen waxay rabaan dhiigga Soomaalida inuu socdo waa dad dagaal qabo 16 sano iyo kasii horna dagaal si wadaanay rabaan marka Etoobiyaanka ma aha problem waa dadka Soomaalida ee isu ku jireen imankana dagaalka islaynaayo marwalba dhameynaayo ma ku malaynayo aniga dagaal weyn oo xoog badan oo soo noqonayo hadda wixii ka dambeeya waxa loo soconaya dhinaca nabadda soo celinta qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya